الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. walaalayaal darsigeennii hore waxaan soo gaadhnay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisii. waan ka soo hadalnay nuurka ilaahay inoo soo diray moxamed, udgoonaha inuu dhashay maalin isniina ayaan ka soo hadalnay, bishuna 12 ay tahay, sanadku uu yahay caamulfiil sidaan hore uga soo hadalnay. waxay waafaqsanayd bisha abriil 21keegii ama 22keegii, sanadku 571 ayuu ahaa milaadiga. waxaa dhashay maalinkaa weyn, maalinkaa isniinta ah, nebi moxamed baa dhashay sala allahu calayhi wasalam. nebigu maalinka isniinta waa soomi jiray. markii la weydiiyeyna waxa uu yidhi daaka yowmun wulidtu fiih, waa maalinkan dhashay ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam. khayru khalqi illaah munqida alinsaaniya, kii ummaddan badbaadinayay bashariyadan ayaa dhashay. de waxaan la joognaa dhalashadii nebigeenna calayhi salaatu wassalaam. waa maalin weyn, waa maalin kownka oo dhan u farxayo, li'annahu bashariyadda baaba iyo halaag ayay ku jirtay. dadku khamra la cabbaa, zinadaa faaftay, waxaa jira 360 sanam in ka badan ayaa la caabudaa, ilaah lama garanayo, waa la islaayaa. wax badbaadiye ayay ummaddu rabtay markaas. ilaahay waa u naxariistay ummaddan. nebi moxamed baa dhashay sala allahu calayhi wasalam. nebi moxamed laakiin agoon buu dhashay, aabbo muu arag. aabbihii waan ka soo hadalnay nebiga, imse jir buu ku dhintay? isaga oo 25 jira ayuu aabbihii dhintay, nebiguna calooshuu ku jiray sala allahu calayhi wasalam. wax dhaxal uu uga tegay nebi moxamed ma jiro. culummada qaarkood waxay yidhaahdaan wuxuu uga tegay 5 awr iyo in yaroo adhiya iyo addoon xabashiyad ahayd oo magaceega la odhan jiray baraka. waxaa loogu yeedhi jiray ummu ayman. waad wala garanaysaan ummu ayman. ummu ayman ayuu uga tegey. ummu ayman waxay ahayd tii nebiga soo korisay calayhi salaatu wassalaam. nebigu aad buu u jeclaa, iyadaa soo korisay oo ihtimaam aad u saartay nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaa uu nebigu ka weynaaday. wuu xoreeyey nebigu, wuxuu u gooriyey zayd ibnu xaarisa oo addoon ahaa, isagana uu xoreeyey ayuu nebigu u gooriyey. waxay u dhashay usaama ibnu zayd. waad wala garanaysaan. nebigu aad buu u jeclaa ummu ayman. wuxuu odhan jiray nebigu ummu ayman ummii bacda ummii, waa hooyaday kadib, waa tii isoo korisay buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wassalaam. anas waxa uu yidhi maalin baa nebiga raacay calayhi salaatu wassalaam isagoo oo soo booqanaya ummu ayman. isagoo oo soo booqanaya ayaa nebiga raacay. gurigii ummu ayman baa soo galnay. nebiga wuu dhunkaaday calayhi salaatu wassalaam. caanay siisay marka nebiga, se u jeclaad u fiirso, caano ayay siisay nebiga. nebigu miyuu soomanaa mise wuu iska diidayey? ma garanayo. wuxuu yidhi ma karayo. waxa uu yidhi fajacalat taskhubu calayhi, ku dhawaaqaysa cab caanaha, cab
عانها عبان كله عب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو يدي وتسوكرسي نبينا عليه الصلاة والسلام مدح أي كفوري صدا سؤها محمد عليه الصلاة والسلام وحاجري وعادة عربت أهيد عرورتا كلها مكة مكة ومقالو عذرات بدن با اسكا جيرا luqada waxa la rabaa ilmuhu inuu saani u barto luqada carabida waxa la rabaa jirkiisu inuu adkaado caafimaad helo waa in hawada iyo baadiyaha loo saaro caadadooda waxa ahaan jirtay dumar ayaa baadiyaha ka iman jiray markay iman jireen caruurta ayay raadsan jireen caruurta loo dhiibi jiray dad lagu aamini jiray caruurtaas baadiyaha geen jireen naaskii muujin jireen waxbay soo bari jireen marka nabiga calayhi salaatu wassalaam haweenaydii ugu horeysay ee naaska muujisay hooyadii bay ahayd waxaa ka dambaysay haweeney la yidhaahdo thuwaybiya ayaa la yidhaahdaa thuwaybiya addoon ayay u ahayd odaygii adeerkii abulahab waad garanaysaan ma addoontiisay ahayd markii loo sheegay abulahab iyadaa u bishaaraysay oo tiri walaalka cabdillaahi inan baa u dhashay farxaddii buu ku yidhi adna xor baad farxad awgeed xor baa tahay buu ku yidhi abulahab kadib walaalkii oo cabbaas ayaa waxa uu yidhi dagaalkii badar kadib abulahab waa dhintay ayaan riyo ku arkay buu yidhi markaasaan ku idhi iiga warran waxa uu yidhi naarta la igeliyey laakiin maalinka isniinta oo qurata layga khafiifiya naarta farxaddii aan farxay maalinka maxamed uu dhashay een u xoreeyey gabadhii thuwaybiye la oranayay maalinkaasaa layga khafiifiya naarta calaa kullin safar baa yimid marka reer bani sacad waa qabiil la yidhaahdo baadiyahay ka yimaadeen dumar baa isa soo urursaday makaa la tegayaa carruurta ayaa la kaxaynayaa haweeneyda lacag baa lagu siinayaa inta ilmaha ay hayso oo dhan lacag baa lagu siinayaa xoolaa lagu bixiyaa iyaguna carruurtaasi soo korinayaan soo barbaarinayaan nebiga calayhi الsalaatu wassalaam haweeneyda ku soo hagaagtay waxaa la odhanaya xaliima asacdiya la odhan jiray iyadaa ka warramaysa dhegaysta waxa ay leedahay xaliima waxa ay tidhi waxaan ka soo baxay bay tidhi qaryadayadii tuuladii baadiyihii baanu ka nimid aniga iyo dumar badan waxa ila socday bay tidhi odaygayga iyo inan yar oon dhalay anigu dumar badan oo reer bani sacad bini bakr ayaan la soconnay bay tidhi waxaanu u nimid maka inaan carruurta aan kaxaysanno oon soo korinno oo lacagna lagu siiyo waxay tidhi sanadku wuxuu ahaa sanad abaareed buu ahaa abaar xoog leh ayaa jirta lam tubqi lanaa shay-a wax ay nooga tagtay ma jirto xoolihii oo dhan baa naga dhintay waan abaaraysannahay waxa ay tidhi waxaan wadanaa dameer baan fuushanahay tidhi anigu odaygaguna hal aad u liidata oon caana lahayn ayaan wadannaa wallaahi wax caano oon ka helayna ma jirta bay tiri habeenkii ma seexanno ka yar baa aad u gaajoonaya caanana uma hayno hashu caano male naasahayguna caano male cunto kalena ma haysanno habeenkii ma seexanno ka yar qayladiis ka yaran wadanno waxa ay tidhi dameertan aan fuushannahayna aad ba u liidataa jilbahana way ka xanuunsanaysaa way socon kari laadahay dumarkii kale naga badi waa la baratamayaa oo carruurta dadkoogu lacagta ay leeyihiin ayaa loo cararayaa waa la goranayaa lacag buu ziyaado u ku siinoo xooluu ku raacinoo waxay tiri anigu waan ugu dambaynaa safarka waan dhaqaaqi kari laanahay ilaahay baa wax ka raba meesha waxa ay tidhi markii aanu nimid maka carruurtii oo dhanba waa la wada qaatay gurigii aanu nimid waxaa la yidhi waa agoon
waa agoon aabbihii wuu dhintay awowgii baa korsada iyo hooyadii buu la joogaa agoon muxuu ii qaban waan ka meeraysatay ilmo kale raadiyey waxba waan ka waayay tiri waxay tidhi waxaan ka xishooday inaan noqdo anuuna waxba aan wadan dumarkii kale igu qosli dameertaa sidaa kugu wacnayd iyo waxbaa la odhan markaa waxay tidhi odaygaygan waxaan ku idhi wallaahi innii la akrahu an arjica min bayni sawaaxibii walam aakhud radiica wallaahi waan ka xishoonayaa waan karhayaa ma doonayo inaan dib u noqdo oy dumarkii igu qosqoslaan anuuna waxba wadan ilmo yar waa inaan ka hayso kii yaraa baan ku noqonayaa bay tiri agoonka ah wallaahi la adhabanna ilaa daalika alyatiim agoonkaa yar baan u tegayaa waan qaadan waa yahay buu igu yidhi laa calayk korkaaga waxba ma ahe orod dhaqaaqaye waxa ay tidhi waxaa laga yaabaa ayaan ku idhi inuu ilaahay barako ii geliyo ma oga inay moxamed qaadayso sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay inay rabbaynayso nebi moxamed ma oga barako waxaa laga yaabaa inuu ilaahay barako ii geliyo ninka daaciga waxaa la rabaa inuu ogaado barakada meeshay ku jirta allahu aclam wix ilaahay kuu doorto qaado waxaa laga yaabaa shay yar ood leedahay waa aad yaraysanaysa inuu ilaahay barako iyo khayr kuu geliyo iyo wanaag inuu ilaahay kuu geliyo ayaa laga yaabaa oday baa miyiga ayay qodax ku mudday jabuuti baa la keenay waa beri hore waa laga saari kari waayey sacuudigaa loo dhoofiyey waa laga saaray waa qodax meel xun ka gash markii uu doonay inuu noqdo lagu yidhi ha noqonina iska joogo waddanka jinsiyaddii sacuudiga iyo waxbuu qaatay waa ragga ugu taajirsan maanta sacuudiga baadiyuhu ka yimid qodax baa ka keentay waxay qaaday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa ay tidhi markaan gurigii aan tegey een ki yaraa idhi waan qaadayaa dumarkii kale way ka tegeen nasiib xumadooda way ka tegeen mar alla markii aan qaaday bay tidhi ki yaraa isla markiiba naasahaygii baa shanqarhayaba caano guux yaa ka soo socda waxa ay tidhi waan qabtay dhabtaan ku qabtay naasahaygiiba caano yaa ka da'aya afkaan u geliyey bay tiri wuu cabbay waa afkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuu cabbay wiilkaygii yaraayo meesha qayriga gaajo yaan soo qaado isagiina waan ku qabtay wuu dhargo u khuriyeyba waxay tidhi odaygaygii wuxuu u jeestay xaggaa iyo hashii waa hashii oo caano idna da'ays waa barakada nebi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam weel buu qaado wuu noo soo lisay markaasaa wuxuu idhi waxaa dhacay waa maxay cajiib barakadan maxay ka timid caanihii baan cabne bay tidhi labadayadiiba bitnaa khayra leyla habeenkii ugu fiicnaa baan seexannay annagoo dregsan ayaan seexannay ilmi yaraana iska seexday waxa ay tidhi barakada ayaan garanay markiiba odaygaygii baa wuxuu igu yidhi taclami yaa wallaahi yaa xaliima laqad akhadtii nasmatan mubaaraka naf barakaysan ayaad inoo soo qaaday xaliimay naf barakaysan ayaad inoo soo qaaday waxay tidhi markii la diyaar garoobay waa la dhaqaaqaya habeenkii xagga baa loo hoyday maka anigu ilmi yaraa baan qabtay dhabtaan ku qabtay isna ilmahayga yaraa buu qabtay hashi buu la fuulay marka waxa ay tidhi dameertii buu ilaahay quwad durba siiyey waa la dhaqaaqay dumarkii kalena waa dhaqaaqeen waxay tidhi dumarku muddo naga horeeyeen waxa ay tidhi wallaahi waxa aan ka yaabay siday u dhaqaaqaysay dhaqso badnida ayaan ka yaabay dumarkii kalean dhaafnay markaasay ii dhawaaqeen oo yidhaahdeen yabnata abi du'ayb wayxaki hoogaaga arbici calayna bal noo yara dhibri in yar aayar u soco xaggeed u ordaysaa miyayna ahayn dameertii liidatay eed la soo socon kari lahay markaasaa waxay tihi waxaan ku idhi balaa wallaahi haa waa iyadii maan bedelin
markaasay waxay idhaheen wallaahi inna lahaa sha'na arrin kalaa u sugan cajiib waxbaa jira meesha waxa ay tidhi dhulkayagii baanu nimid baadiyihii reer bani sacad ayaanu nimid wallaahi wax ka abaaraysan ma jiro abaar xoogle waxa ay tidhi mar alla markii nebi moxamed aan meesha la nimid dhulkii ilaahay barako noo geliyey adhigaan dirnaa dhulka oo abaara waxay soo noqdaan iyaga oo caana da'aya ayay soo noqdaan kuwii kale adhiga markay diraan adhigoo soodii ayaa soo noqda yaab markaase kuwii adhiga u eegayey ayaa waxa ay ku yidhaahdeen war meesha adhiga ay daajiyaan idinkuna orda oo soo daajiya meesha adhiga ay ku eegaan idinkuna ku soo eega meeshaasay ku eegayeen iyakana waxay u noqdaan adhigoogii iyaka oo sidoodii annakana iyada oo maarata ay nimcaysan yihiin waa barakada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mubaarak ayuu ahaa nebi moxamed mid barakaysan ayuu ahaa waxa ay tidhi khayr baa meeshii noo furmay dhulkii ilaahay waa noo barakeeyey 2 sano sidaas ayaan ku jirnay 2 sano markii ay dhammaatay waxa uu ahaabay tidhi yashubbu yacni waxa uu korayey si ayna dhalinta iyo ciyaalku ayna u korin ayuu u korayey quwadda u beeraysa iyo casaanka iyo quruxda iyo hadalka iyo maaragta waxa ay tidhi wax lamida maanu arag in yar kadibba waxa uu noqday weli yar oo qurux badan oo adag ayuu noqday oo hadalkana waa 2 sano hadalkana siduu u yaqaana aad malayn waxa dhacay yacni luqada carabida nebigu wuxuu ahaa fasiix buu ahaa abubakar sadiiq baa waxa uu ku yidhi yaa rasuula allah maan arag carab wax kaa fasiixsan maan arag nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wassalaam wamaa yamnacunii wa ana min quraysh maxaa ii diidaya fasaaxada anigu quraysh baan ka dhashay wa ardactu min bayni sacad reer bani sacadna xalime iyo meeshan xaggaana naaskaa la igu soo nuujiyey xaggaasaan ku soo barbaaray oo luqada ku soo bartay maxaa ii diidaya saasuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam 2 sano lagu soo heshiiyey in ilmaha yar naaska la soo nuujiyo kadibna la soo celiyo waxa ay tidhi aad baan uga murugoonaynaa inaan hooyadii u celinno oo inaga haysato barakadaa iyo khayrkaasaan doonaynaa waxay tidhi hooyadii baan u nimid hooyadii baanu qancinnay nidhi magaaladu xanuun bay leedahay ka yar si fiican buu u barbaarayaa noodaa waan marsiiyey bay tidhi calaa kullin way oggolaatay 2 sano oo kale ayaa lagu daray waxa ay tidhi waa imise sano 4 sano weeyaan ha la xafido 4 sano ayuu la joogaa reer bani sacad 4 sano markuu dhammaystay iyo dhowr bilood ayaa arrin baa dhacda bay tiri xaadisad shaqu sadr ayaa dhacay waxaa dhacay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam isaga oo la ciyaaraya carruurtii yareed ee xaliima ay dhashay cabdillaahi ibn alxaaris iyo aniisa iyo isaga oo la ciyaaraya iyo xudaafa iyo aqalka dabadiisa kula ciyaaraya ayay malaa'ig u timid malaku jibriil baa u yimid dhar cadcad buu xidhan yahay qofuu iska soo dhigay tashti buu wataa dahaba biyo zamzamaa ka buuxa biyo zamzam ayaa ka buuxa moxamed buu qabtay calayhi الsalaatu wassalaam ciyaalkii kale way yaaceen qaar baa meel ka khaawusaya iyagoo arkaya ayuu kala dilaaciyey calooshiis waxbuu ka soo saaray uu tuuray markaasaa waxa uu yidhi haada xadu shayطaani minki shayطaanku waa meeshuu degayey ama shayطaanku jidhka insaanka wuxuu ku leeyahay meel waswaaska ugu tuuro ayuu ku leeyahay taasaa nebiga laga sifaynaya calayhi الsalaatu wassalaam shayطaan waswaasaya oo wax ku tuuraya oo male khalaas waa la sii edbinayaa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam risaalaa loo dhiibayaa waxyi baa loo dhiibayaa jasadkiisa caqligiisa waa la soo rabaynayaa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam waa la soo sifeeyey waa la soo maydhay biyaha zamzamkaa lagu maydhay tashti dahaba ayuu ku wadaa culimmadu waxay leeyihiin biyaha zamzamkaa lagu maydhay
waxaa daliil u tahay biyaha zamzamku inay yihiin kuwa ugu fadliga badan biyaha. nebigaa ka warramay calayhi الsalaatu wassalaam waxa uu yidhi jibriil baa ii yimid wuu i qabtay laabtayduu kala dilaaciyey ama qalbigayga riwaayo kale wuu ka soo saaray wuu sifeeyey dib buu igu celiyey. kadib nebigu waa saro kacay calayhi الsalaatu wassalaam isaga oo wejigiisa uu dhalaalayo. carruurtii baa carartay reerkii bay u soo sheegeen oo yidhaahdeen arrintaasaa dhacday soo orod. waxa ay tidhi xaliima sacdiya aniga iyo odaygaygii oo ordayna ayaana nimid meeshii waxaan aragnay isagii oo wejigiisa uu beddelan yahay. riwaayo kale isagoo ooyaya ayaanu u nimid. markaasaa ku nidhi maxaa ku helay? markaasuu ka warramay qisaddii. nin baa ii yimid way ii qabtay siday ahayd buu uga warramay nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. anas waxa uu yidhi waa markii dambe nebigu weynaaday waxaan arkayay meeshii yacni nebiga laga jeexay calaamad yar baan ka arki jiray buu yidhi. way cabsatay haddeed inay dhibaata qabsato ayay ka cabsatay ka yar. waxay tidhi waa inaan hooyadii u celiyo. way doonaysaa kan yaree barakaysan inuu aqalka joogo laakiin waxay cabsanaysaa inay dhibaato ay heshay. way celisay marka waxa ay ku celisay hooyadii ayay ku celisay. hooyadii xaliima sacdiya waxay tidhi markaan hooyadii u imid ayaan ku idhi waa tan ammaanadii waan kuu keenay. way iga shakiday waxay tihi markii hore aad baad u doonaysay hadda maxaa jira adaa keenay wakhtigii oon maarata weli wax inuu harsan yahay. markaase waxay tihi waa kan ilmihiiya iga qabsa ammaanadii. waxay waddaba way ka soo saartay. waxay tihi nin baa u yimid oo caloosha jeexayo caynkaasoo waxa ay ku tihi aamina kalaa wallaahi laa yasnacu allahu daalika bihi. arrintaa ilaahay dhibaato uguma keenayo. wax dhibaato oo wiilkaygan ku dhacaya ma jiro. ina liibnii sha'na wiilkaygan yar arrin baa u sugan waxbaa jira. ma kuu warramaa arrintiis? waxa ay tidhi markii aan uuraystay in caloosha ku qaaday moxamed fawallaahi maa xamaltu xamlan qad kaana akhafa calaya minhu. wax ka fududaa maan arag caloosha in ku siday. culays ma dareemin maaragtay dhibaato ma dareemin. waxa ay tidhi walaa aysara min wax ka fududaa maan arag. wallaahi markaan dhalayayna nuur baa iga soo baxay aan ilaa basra arkay shaam. wallaahi siday carruurta u dhashaana umu dhalan. waxa uu dhashay isaga oo qacmaha soo horaysiinaya samadana eegaya ayuu dhashay. markaa waxay tidhi khalaas inankayga ha u cabsan inay dhibaata ay ku dhacdo ha u cabsan anaa haynaya anuu ila joogi maca salaama. barakadiisa iyo khayrkiisaan anaguba heli. dhimashada tagista ay tagtay aad bay uga murugood xaliima asacdiya. hooyadii baa loo keenay. hooyadii way barbaarisay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam. 2 sane hays xaliima imise haysa xaliima 4. hooyadiina 2 sano waa imse jir markaa nebigu waa 6 jir. nebigu calayhi الsalaatu wassalaam markii da'diisu ay 6 gaadhay ayuu nebigu hooyadii ka hays isaga iyo ummu ayman oo addoontii aabbihii ay haysan jiray tii korisay weeyaan nebiga iyo cabdilmuطalib oo ahaa awowgii nebiga awowgii calayhi الsalaatu wassalaam. waxay tidhi madiinaan tegaynaa waxaan soo bari madiina qabrigii aabbihii ayaan soo tusi abtiyaashii ayaan soo tusi oo xagga iyakuna deganaa. xaggaa markii ay tagtay madiina waxaa loo socdaa waa 500 oo kilomitir weeyaan. inay dadkooga ay soo barto ayay doonaysay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam.
waxaa xanuun baa xagga ku qabtay way xanuunsatay markii waddada ay soo noqonayaan ay ku soo noqonayaan maka ayay dariiqa ku dhimatay meel maka iyo madiine u dhaxaysa oo magaceega la yidhaahdo al-abwaa ayay ku dhimatay xaggaasaa lagu aas iyadiina xaggaas ayay ku dhimatay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam da'diisu waa imse jir waa 6 hooye iyo aabba midna male hooyadii culimmada qaarkood waxay leeyihiin 20 jir dhowr iyo 20 jir baa 22 23 meelaha aabihiina imisuu ku dhintay 25 jir ayuu ku dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam cudur ma helin way caafimaad qabaan labaduba nebigu calayhi salaatu wasalaam laba waalid oo liita oo tacbaana kama dhalin labaduba way caafimaad qabeen oo jirkoogu u dhisnaa laakiin ilaahay baa arrin kale ka raba meesha waxaa la leeyahay khalaas muhimaddiinnii nolosha way dhammaatay ininka waxay ahayd inaad moxamed keentaan moxamedna wuu yimid qof kale lama rabo inuu rabeeyo uu soo barbaariyo moxamed ilaahay baa soo barbaarinaya wax walba waa laga ilaalinayaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu rabaa inuu soo barbaariyo isagu markii nebigu ohan jiray addabanii rabbii fa axsana ta'diibii ilaahay baa i edbiyey inanka yar haddaad dhirbaaxdid aabbihii buu ordi aabbo aabba hadduu lahayn hooyadii buu ordi hooyo nebigu hooyana male aabbana male yaa allahu si uu yidhaahdo weeyaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa la soo edbinayaa luqadii baa la soo baray jirkiisaa la soo dhisay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam hooyadii iyo aabbihii waa waayey nebigu calayhi الsalaatu waa kii ilaahay ugu jeclaa khalqiga haddaad aabbo weydid nebi maxamed xasuuso calayhi الsalaatu wasalaam hadday hooyo kaa dhimato nebi maxamed hooye aabba midna ma lahay 6 jir weeyaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nebiga waa la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam asxaabta waxay ku yidhaahdeen maa awalu bid'i amrika yaa rasuula allah arrintaada se u bilaabatay nebi allow maxay ku bilaabatay nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam aniga yacni hooyada iyo aabbahay ima bilaabin arrintaydu xaggaa kama bilaabmin way soo socotay ana dacwatu abi ibraahiim anigu waa ducadii nebi ibraahim baan ahay nebi ibraahim muxuu lahaa rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نبي إبراهيم وحكو دعي إله كسو صار رحدودا قف إياك كمدة أو أدقى أو بربارية أو كتاب كبرة أو حكمة برة ودعاء نبي إبراهيم دو إلهي أقبله ولا سودي دعادي يكون دعي دونتا الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي بصولا كذب نبي وحا يدي عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى بشارة النبي عيسى أيام ولي بأهيب النبي عليه الصلاة والسلام نبي عيسى وسيب بشاري وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وسيب بشاري نبي عيسى سيب بشاري وحي من دونه نبي بقى إيمان دون أحمد اللي يدهده يا محمد عليه الصلاة والسلام بشارة صان أحب النبي يقول عليه الصلاة والسلام النبي يقول وحا ويدي هو يدي وحا أركت النور وإفتمنا يا قصور الشام فيلا الشام كثيرة قريها الدار الشام كثيرة نور إفتمنا يا والشام علماء وحا يدهدين ابن كثير أكل وحا ويدي وحا علامات أطهي دليل وحا أطهي إن نورك أجاري دون الشام إن إسلامك آخر زمن والشام اسكو إيمان دونه والنبي عيسى آخر زمن كمركم مسيح الدجال وأرض وصومر ومال والبا وفساديو إن يدتك مسلمين تو الشام اسكو إيمان دونان والنبي عيسى حقا كسو دقي دونه دمشق وحكى له النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال أمتي إذا كمدا أي حق كسجنان بيجي النبي عليه الصلاة والسلام أن لدبين أن هوجين كرين إلى قيامه وقد عيو رواية كلا وحا أهيد وهم بالشام ماشى الشام ليدهدو
ayay joogaan. idan nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ducada nebi ibraahim bishaarada nebi ciise ayuu ahaa. kadibna labadan waalid ayuu ilaahay u soo doortay. markii ay dhaleen nebi moxamed way dhinteen. waa 6 jir nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. waxa uu arrintii u soo wareegtay awoogii. waan ka soo hadalnay awoogii cabdilmuطalib siduu u jeclaa cabdillaahi aabbihi nebiga aabbihi. waa inankii quraata uu dhale weeyaan moxamed. aad buu u jecel yahay. aad buu ugu murugooday ka yar. waa soo celiyey cabdilmuطalib. dib buu u keenay ilaa iyo maka ayuu ku soo celiyey isaga oo aad ugu murugaysan. nebiguna aad buu hooyadii ugu ooyey calayhi الsalaatu wassalaam. waxa uu aad buu u jeclaa. waxa uu ahaa cabdilmuطalib nin aad loo jecel yahay buu ahaa. nin dadkii quraysh ashraafta lahaa la garanayey ayuu ahaa. nin waxa uu ahaa yacni waxaa loo dhigi jiray firaash baa loo dhigi jiray kacbada agteeda. markaasa xaggaa lagu salaami jiray. isagaa madax u ahaa quraysh oo dhan. zaciim buu ahaa. saadadooda ayuu ahaa laga dambeeyo. firaash baa loo dhigi jiray. xaggaasuu faliisan jiray. carruurtiisuna way ag faliisan jireen. nebiga adeeradii way ag faliisan jireen. nebigu calayhi الsalaatu wassalaam isagoo oo inankaa yara 6 jir siduu u soo socdo ayaa wuxuu faliisan jiray firaashka awoogii. siduu u soo socdo ayuu firaashka la faliisan jiray. markaasay odhan jireen ka kac adeeradii inay ka riixaan bay rabaan oo yidhahdaan na ag fadhiiso meelaan fadhiiso. firaashka lagulama fadhiisto odayga. siduu u soo socdo nebigu faliisan jiray firaashka calayhi salaatu. markaasaa wuxuu odhan jiray ii daaya inankayga dacuu ibni haada fawallaahi ina lahu la sha'na. arrin baa u sugan. wuxuu firaashkaa u soo fadhiisanayo arrimo kale ninkani. waa la soo rabaynayaa. waa la soo dhisayaa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam. dhabarku u masixi jiray. madaxu u taataaban jiray. marmarka qaarkood wuxuu u diri jiray hawl odhan jiray or soo qabo siduu yahay iyuu u soo fulin jiray arrintu. maalin maalimaha ka mida ayaa wuxuu ku yidhi orodoo hashii meesha ka keen. meel baa marka waa la waayey warkiisii. odaygii aad buu u murugay. kacbaduu ku wareegay isagoo oo murugaysan. carruurtiisii oo dhanna meel walba u diro yidhi orda oo raadiya moxamed. waxa uu ku ducaysanayay isagoo oo kacbada ku wareegaya ayaa waxa uu lahaa rabbi rudda raakibii muxamada ruddahu lii wasna cindii yada. ilaahu moxamed ii soo celi. ilaahu wanaag ii samee oo moxamed soo celi. kadib nebigu calayhi الsalaatu wassalaam in yar kadib uu yimid. markaasaa waxa uu ku yidhi laqad xasintu calayka ya bni kalmar'a. waan kuu murugooday buu yidhi inankaygiiyow sida haweenaydu u murugto oo kale ayaan kugu murugooday. xusnan laa yufaariqunii abada. murug aan iga faaruqayn ayaan kuu murugooday. waxa uu la joogay awoogii 2 sano. waa imisa sano markaa nebigu? waa 8 jir. awoogiina wuu dhintay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam. markuu ku dhintay da'diisu waxay ahayd culummada qaarkood waxay leeyiin 110 jir buu ahaa. qaarkoodna waxay leeyiin 144 buu ahaa. ilaahay baa u kaadinaya intuu nebiga korinaya 2 sano. aad buu ugu murugay. wuxuu u yeedhay inankiisii markuu arkay inuu xanuunsanayo xanuunkan uun ka kacayn ayuu u yeedhay inankiisii abi aalib ayuu u yeedhay nebiga adeerkii. abi aalib iyo cabdillaahi nebiga aabihii waxay ahaayeen isku bah bay ahaayeen. yacni isku hooyo iyo aabbo ayay ahaayeen. labadaasoo qoraataa isku hooyo aabbaha. inta kale hooyooyin kale ayay ahaayeen. wuxuu u yeedhay markaa abu aalib buu u yeedhay. cabdilmuطalib baa u yeedhay inankiisa. waxa uu ku yidhi inankii adaan kugu ogahay moxamed ah. waka hooyadii iyo aabbihii way dhinteen. anigiina waa aniga. adaan kugu ogahay. waa yahay buu yidhi.
waa dhintay odaygii awowgii ah nebigu aad buu ugu murugay calayhi الsalaatu wassalaam waxa uu u soo wareegay kafaaladii iyo barbaarintii adeerkii abu aalib ah odaygan adeerkii abu aalib wuu ciyaal badan yahay lacag badanna ma haysto waa iska miskiin faqiir weeyaan wuxuu u baahan yahay isagaa u baahanba wax carruurta la koriya ayuu u baahan yahay aad buu u jecel yahay moxamed carruurtiisa kale oo dhan wuxuu leeyahay laga qabto walaalihii buu leeyahay carruurta ila koriya laakiin moxamed waxa uu leeyahay aniga uma korinaya nebigu calayhi الsalaatu wassalaam adeerkii buu u soo wareegay waa imse jir nebigu ya 8 jir weeyaan adeerkii baa korinaya hadda nebigu calayhi الsalaatu wassalaam isaga oo yar oo 8 jir 9 jir isaga oo da'daasa ayaa nebigu calayhi الsalaatu wassalaam waxa uu ka fikirayaa adeerkii siduu u gargaari lahaa ayuu ka fikirayaa wuu ciyaal badan yahay waana miskiin wuxuu bilaabay nebigu calayhi الsalaatu wassalaam inuu adhiga eego adhiga inuu ree maka u eego adhiga uu lacag ka qaato uu lacagta adeerkii siiyo ciyaalkeenu maanta way cunaanoo way cabbaanoo odaygii oo macaan leh oo dhanaan leh oo sariir leh oo gebigiisu wala xanuunsanaya ayaa subaxdii ka lahaa oo duhurkii yimaada wiilkii oo iska hurda wuxuu qabanaya male duhurkii buu kicii markaasuu leeyahay jaadkii aaway innaga waa sida xaaladdeenu waa kaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga oo yar oo 8 jir 9 jira ayaa wuxuu ku fikirayaa siduu u shaqaysan lahaa adeerkii u gargaari lahaa ayuu ku fikirayaa nebigu calayhi الsalaatu wassalaam ree maka ayuu adhiga u eegayey lacag buu ka qaadan jiray waxa uu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam maa bacثa allahu nebiya ilaa raca alghanam ilaahay ma soo dirin nebi ilaa adhigu soo eegayey nebi walba adhigu soo eegayey nebi muuse waad garanaysa adhigu soo eegayey nebi ciise nebi walbuu ilaahay soo diro adhigaa la soo raacin jiray cajiib meesha waa la soo tarbiyaynayaa addabanii rabbii fa axsana ta'diibii adhiga ninka adhi jirahu uu ka sabir badan yahay ka geela jira geela waad ku sii dayno neefka meelaha umudaaqi oo khalaas marka dambana uu iska fadhiisan adhiguu kala baahi kana jabi kana meel ka dhici uu kala baahaya adhigu wuxuu u baahan yahay waxaasoo dhan in la soo celiyo wuxuu u baahan yahay ka tabarta dara inaad qaadid wuxuu u baahan yahay inaad isku keentid ma faliisanaysid kan geela eegaya ama looda hadhka iska geedka hoostiisa iska faliisan xaggaa ma ka eegi ka adhi jiruhu ma faliisanayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddana loo diri doonaa way kala baahsan yihiin caqiido kala duwan bay wataan asnaam fara badan bay wataan sabirkaa la baraya adeegaa la baraya waa la soo rabaynayaa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam adhi jire ayaa laga dhigay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam waxaa la barayaa alyad اlculya khayru min alyad الsuflaa inaad isku filnaatid adigu ayaa la barayaa asxaabta waxay ku yidhi nebi allo adiguna adhiga maad eegi jirta haa buu nebigu yidhi waan eegi jiray wuu ku faanayaa nebigu calayhi الsalaatu wassalaam waan eegi jiray adhiga lacag yar baan ree maka ugu eegi jiray xaafid ibnu xajar markuu ka warramayey arrintaasi waxa uu keenay adhi jiraha inta faa'iido uu helo ninka adhi jiruhu sabirkuu bartaa dulqaadkuu bartaa tawaaduc isma weynaysiiyo oo maarata waa adhi jiraan ahay buu leeyahay isma weynaysiinay sabirku baranayaa yani wax badan buu maarata ayuu sheegay ilaahay wuxuu karaa nebigiisa calayhi الsalaatu wassalaam inuu guriga u joogo dahab u buuxiyo oo lacag u buuxiyo oo ilaahay wuu karaa laakiin nimcaddan zaahidkii ma soo saarto qof fayow carruurta yare nimcadda ku korta cun oo cab oo seexo oo maarata ma fikirayo wax ma baranayo aabbihii baa lacag leh ma fikirayo ummadda humuumta haysa televisaagaasuu daawan kanuu cuni kanuu jebin baabuur kala jiituu wataa ma fikirayo se ummadda u fikirayo ma fikirayo kaa yare shandadda marna tiriga laga goynayo marna biyaha laga goynayo ee xamaalanaya ee ordaya kaasaa wax baran kara ilaahay waxa uu barayaa nebigiisa calayhi الsalaatu wassalaam
inuuna dadka u baahan u shaqaysto ayaa la barayaa ninka daaciga ah waxaa la rabaa inay gacantiisu ay ka sarayso inuu dadka u baryo oo dadka uu ku maarta hoos joogo ambiyadu saasay ahaayeen dadka lacag kama qaadan jirin waxay oran jireen wayaa qawmi laa as'alukum calayhi maala in ajriya ilaa cala allah wax aniga doonaya male dadow lacag inigama rabo waa shaqaysanayaa إلهي حق السن إني يقول النبي وحى يري صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وحى يري قف معنا عنتو كخير بدن وحى أصوش قيستي سو وحى أصوش قيستي تاس أقول خير بدن عنتد أتصوش قيستي أقول خير بدن نبي وحاول وإن النبي الله داود عليه السلام نبي داود كان يأكل من عمل يده وحا الشقيست أيعني بيروه قراعي جري أو قف كمسلم كأوحى للرباء إنه الشقيستو ونؤباه هندتك أبو طالب وحا قرية كسو بيري محمد عليه الصلاة والسلام كو مركه هر النبي culays kumuu soo beenin reerkii shaqu bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam talabaad waxay arkeen guriga in uu soo galay wiil yaroo barakaysan waxa uu arkay caruurtiisa markuu cuntada u dhigo markaaba way ku leefaan ma dhargaana way soo taagan yihiin laakiin markuu nebi maxamed la cuno maxamed markuu la cuno calayhi salaatu wasalaam way dhargayeen wuu arkay taa caano hadday cabbaan ma kaafinayso sida wuxuu odhan jiray markuu cuntada uu soo dhigo ayaa wuxuu odhan jiray sidaa aad tihiin ahaada kamaa antum xataa ya'tii ibni ilaa inankayga uu ka imanaya maxamed markuu yimaado ayuu odhan jiray la cun markaasuu bilaabi jiray markaasuu odhan jiray ma inigu filan tahay haa way dhargeen caano markii la keeno da maxamed buu ku bilaabi jiray nebigu markuu afka u saaray barakadiisii ku yaacdo way ku filnaan jirtay inta kale markaasay wala cabayeen waxbaa ka soo hadhay haddii kale waa lagu go'ayaa meesha subaxdii markay carruurtu soo toosaan xafaji iyo kusoo toosaan ma qaar dhareerle iyo waxay arkeen haweenadiisa faatuma la odhan jiray oo aad u jeclayd nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay aragtay carruurtu markay subaxdii soo wada toosaan iyakoo xafaja leh oo dhareer leh laakiin nebigu wuxuu soo toosi jiray calayhi salaatu wasalaam isagoo oo dhalaalaya oo indhakuulan ayuu soo toosi jiray dhareer iyo xafaji iyo midna aan lahayn ayuu soo toosi jiray wuu arkay barakada iyo khayrka ka soo socda ayuu arkay kadib maalimaha ka mida waxaa dhacay abaar xoog ayaa dhacday reer maka abaar bay dareemeen roobkii baa habsaamay waa la isku ororday waxaa loo yimid abu aalib waxaa la yidhi kaaliba roob doon baan samaynaynaaye abu aalib waxa uu soo kaxeeyey sida uu ibnu casaakir uu ku soo saaray kitaabkiisa waxa uu soo kaxeeyey محمد بو سو كخيي isagoo ujiidaya oo caruurtiisina wala ag socoto waa khayr buu ku ogyahay barako ku ogyahay kacbada ayuu dhabarka u saaray dadkii oo dhan xagga joogan qacantu ku fiiqay rabbi waxaan ku weydiisanayna ya rabbi rabbna si isagoo farta ku fiiqaya waxa uu yiri fa aqbala as-sahabu min huna wa min huna darurihum ay soo qabsaday dhinac walba ka yimid roob baa noo fatahay webiyaashii baa jabay dhulkii oo dhan nimcad iyo khayr baa ka dilaacay waa barakada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وكيلها أبو طالب بركذا سكرك وحدون يا مر والبهد السيء بركذا أهله إنه أكحيو ميل والب حتى مركو تجارته جناسي أو جناسي تجيو شو شقيسانيو وحر ما إنه كحيو محمد سيء بركذا يا خير كاس أهله وحا
ودوني إنه جنع صد أضيق أبو طالب أها شام بتجارة جينيا حقا إيه الشام بوكعيا نبي قد دأدي سوال لبي يتبجير هذا دأدي سوال مسا ولا بي يتبن هي لو بلاد أبو طالب أياك حستي وحور ربعين وبرسوق قاصد الله جنع صدا وحي السعدان بمرك الشام يمادين مال بصرة اللي ده مرك يمادين وحي الرع سنيد الرومان كمرك هيستو حكم الرومان بهيستي لكن وحي عربت وقالوا لك عربت أي رومان كهيستين طريقة ماشى مرك أي شوغان ماشى نبى إسكفر لي الراهبة شيخ علماء ووينيد كريستنك أيام ماشى إسكفر لي ماشى سكو عبادة استا الدون كان يوحنا كجو أيبو لي أنا حق من كو عبادة سنية من كان راهب كأبو حيرة أي لوجو يريشلي لكن ما جي عيسى واحد الأورنجيري تشرشيس بالأورنجيري تدك أمسو بحشرين maalinkaa wuu soo baxay way ka yaabeen cunto u sameeyey uu soo dhaweeyey way ka yaabeen mar walba waan soo marnaa ninkan ma soo baxay maanta inta soo baxay cunto loo sameeyey casuumadii maxaa dhacay dadkii buu dhex marmaray siduu u dhex socday ayuu maxamed qacanta qabtay calayhi salaatu wassalaam markaasaa waxa uu yidhi haadaa sayidu alcaalamiin هذا يبعثه الله رحمة للعالمين كان هو سيد كعالم كأردن كان هو كإلهي نحريس وصدر الدون ومد أردن عالم كأردن أبو طالب أيام ماشي كسور بودي مركز وحى وكيري ما هذا الغلام منك ويلك يرمحاد أطهي مركز وحى وإنن كيجي آد بوتشي على مركز وحى أورنج وإنن كيجي هذا يرمان وهاي مورنج وإنن كيجي بوي waxa uu ku yiri ma huwa bi ibnik inankaaga ma aha runta sheeg waxa uu yiri adeerbaan u ahay aawe aabihi buu yiri wuu dhintay buu yiri waa sax buu yiri isaga oo hooyadii ay uur leedahay uu dhintay waxa uu yiri wiilkan yar la noqo ma kala tag sida ugu dhaqsaha badan u la noqo ninkan yar wuxuu noqon doonaa rasuul buu noqon doonaa nebi ayuu noqon doonaa waa nebiga la sugayo waxa uu ku yidhi oo maxaad ku ogtahay maxaad ku garanaysaa waxa uu yidhi markaad meesha yar taagga aad ka soo dhaadhacayseen baan ini eegayay wallaahi lam yabqa xajarun walaa shajar ilaa wakharra saajidan dhagax iyo geed muu soo agmarin ka yari ilaa way u sujuudayeen dhagaxa u sujuudayay geedka u sujuudayay wax walba agmar u sujuudayay sujuudu caabudaad ma ahayn waqtiga yani waxa weeyaan waa salaan way salaamayeen ولا تسجد إلا للنبي نبي مويانه وحكى له سجودان وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسف وحكوا لي وحكوا قرن أو كلا ربر كان الشامبد بكل هاي النبي نمد عدينس إنه النبيه ربر كي سؤال على مدي سؤال تفاحة أو كلا وإنه آخر أنبياء إنه يهي عدينس شامبد ياكو تعالى وحكوا لي ويل كان يرلن نقو يهود وي قرنيسا كتابك كقرية تلماميس والنبي عيسى سيشاقي نبي عيسى كسي والرمي أخلاق ديسا مجي عيسى علامات كاللغو قرانا يؤردن نبي محمد بكس النبي عيسى سي والرمي ولا قرانا يا وقت جيسي نو دوية هي مركا ولا سوغيا مركا أركان سوغو جيدي وسجوديا نجح وسجوديو وحي أرانا يا واكانوا ويدليا رومان كانوا ويدليا مركا كير هذا اللي تكتب الشام يهود باتشوك تماشاس way garanayaan horena way ka dilayaan waxaan kugu dardaarbi inaad celisid odaygii baa doonay inuu ku yar adkaysto dhamay waa ka tagi kari maayo waa inaan u yariyo aan noqon kari maayo waa u diiday si walba celi buu ka yar sidoo uu waday wuu celi isagu ma celinay wuxuu raaciyay dhalin yar buu raaciyay wala celiyay nabiga calayhi salaatu wassalaam makka ayaa dib loogu celiyay nebiga da'diisu waa 25 jir aan talaabsanay 25 jir markii uu gaaray nebigu waxaa dhacay dagaal la yiraahdo xarbul fujaar ayaa dhacay quraysh iyo kanaana reer bani kanaana oo dhinac ka soo jeeda
iyo qays qabiil la yidhaahdo qays ibnu caylaan la yidhaahdo ayaa iska hor yimid oo islaayeen marka quraysh baa aad isku dhexdoodii dagaal xoog la ka dhacay waa qurayshum waa qabaa'ilkii quraysh ayaa islaayay nebigu calayhi salaatu wassalaam dagaalka uu ka qayb galay laakiin ma dagaalamayn ilaahay baa ka ilaalinaya inuu wax dhiig uu yaaciyo adeeradii buu laabka u hagaajinaya u siinaya u difaacaya bas laakiin ma dagaalamayo nebigu calayhi salaatu wassalaam waxaa xarbul fujaar loogu bixiyey bilihii xurumka ahaa ee la dagaalamayn ay xaaraanta ahayd in la dagaalamo ayay dagaalameen marka waxaa loo bixiyey xarbul fujaar waa dagaalkii kuwii dembiilayaasha ah ay dagaalameen ayaa loo bixiyey kadib waxaa dhacay nin ayaa yimid yaman ka yimid maka ayuu yimid wuxuu wataa xamaan buu wataa wuxuu rabaa maka inuu ku iibiyo waa reer zubayd waa yaman markuu ku iibinayey nin la yidhaahdo alcaas ibnu waa'il assahmi ayaa ku yidhi xoolaha iga iibi xoolihii buu siiyey hadhow baan kuu keeni buu ku yidhi kaala iga qaad buu ku yidhi kaala iga qaad waa tamaanta la yidhahdo kaala iga qaad waa u diiday arrintaasi dhibaatay ku noqotay ninkii qabaa'ilkiiba u dhawaaqday cabdidaar makhzuum reer jumax sahman qabaa'ilkiiba u dhawaaqay war ii gurmada yaman baan ka imido xoolaan wato xoolii ninkana iga wala dhacay war hala ii gurmado war waa maka ree makaa tihiin war wuu cabaaday meesha wax u dhaqaaqa ayaa la waayey arrintaasi markii ay sidaa dhacday ayaa waxa uu koray buurta la yidhaahdo abi qubays iyo kor ninkii buurta korkeega ayuu ka dhawaaqay gabay buu jiriyey marka uu leeyahay ma la ii gurmado xaram baa lagu jiraa ma la ii gurmado oo la ii naxo nin baa xoolahaygii dhacay waxaa u tegey zubayr ibnu cabdilmuطalib ayaa u tegey waxa uu yihi war ninkan intuu isagii soo kaxeeyey ayuu carabtii kuwii quraysh ayuu u yimid wuxuu ihi wareedhaha sidani sax ma ah ninkani waa makan dhex joognaa dad baa lagu dhacaya xaramka dhexdiisa miyaa sax ma ah ninkan maan u kaalmayno oo wax u qabanno waa la iskugu yimid meeshii qabaa'ilkii oo dhan baa iskugu yimid reer bani haashim reer bani cabdilmuطalib asad ibni cabdilcuza zahra ibnu kilaab taym ibnu mur qabaa'ilkii baa iskugu yimid guriga waxaa la isku yimid cabdillaahi ibnu jadcaan gurigiis ayaa la isku yimid heshiis baa lagu galay ballan adag baa la iska qabtay in nin alla ninka maka lagu dulmiyo in loo kaalmaynayo muxamedna uu ka qayb galay sala allahu calayhi wasalam nebiguna shirkaasuu ku jiray waa nusrat almadluum ka la dulmiyo ee la gardaraysto waa in la difaaco taasaa lagu heshiiyey way dhaqaaqeenoo ninkiiba xoolihii uga soo qaadeen nebigu calayhi salaatu wassalaam uu ku faani jiray waxa uu odhan jiray waa markii dambe uu nebi noqday laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bnu jadcaan xilfan maa uxibu anna lii bihi xumuru nicam wuxuu odhan jiray waxaan ka qayb galay shir ama heshiis lagu galay guriga cabdillaahi ibnu jadcaan oo dulmiga lagaga hortegayo wallaahi wax aan ka jeclahay ma jira buu nebigu calayhi salaatu wassalaam haddii la igu yeedho iminka kaasoo kalena la ajabtu buu yidhi nebigu waan yeeli lahaa waan ajiibi lahaa waxaa loo bixiyey xilf alfuduul ayaa loo bixiyey yacni qaar badanoo fadl la odhanayay ayaa ku jiray culimmada qaarkood yidhaahdaan markaasaa la yidhi waa heshiistii dadkii fadli ka kacayay xilf alfuduul baa loo bixiyey nebigu waa ka qayb galay da'diisu waa imisa ya 25 jir weeyaan nebigu calayhi الsalaatu wassalaam way socotay nolosha nebigu calayhi الsalaatu wassalaam 25 jir isagoo oo weli da'diisu ay tahay ayaa waxa uu bilaabay in uu ganacsi
وشقيستو isaga tijaaro bilaabaya nabigu calayhi salaatu wasalaam tijaaro ayuu bilaabaya laakiin intaan tijaarada aanu sheegin nabigu calayhi salaatu wasalaam waa inan yar da'diisu waa 25 jir ilaahay waa ka ilaaliyey nebigiisa wax alla waxa xumaanta ay shabaabku sameeyaan oo dhan ilaahay waa ka ilaaliyey khamri macabin sanab uma sujuudin gabadh lama haasaawin wax walba oo xumaan oo dhan ilaahay waa ka ilaaliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam adabani rabbi fa axsana ta'diibi ilaahay baa soo edbinaya wala soo diyaarinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam xumaan oo dhan waa waqtiga shabaabku uu kulul yihiin xumaan oo dhan ayuu ilaahay ka soo ilaaliyey waxa uu yidhi nebigu maa hamamtu bishay mima kaana fi ljaahiliya wixii dadka jaahiliyadu ay samaynayeen kumaan hambiyin buu nebigu kuma fikirin laba goor mooyaane waxa uu yidhi labadaa goor isaga oo nebigu uu ka warramayo waxa uu yidhi labadaa goorna ilaahay baa iga qabtay aniga oo buurta jooga oo adhi ku eegaya ayaa wiilkii yaraya adhiga ila eegayey ayaa waxaan ku idhi adhiga iga sii eeg caawa han soo caweeyo makahan tago shabaabka makaan la soo caweeye waayahay buu yidhi wuxuu yidhi waan imid makaan imid boorti baan ka imid waxaan arkay guri lagu ciyaarayo oo shanqadha iyo wax ka dhacaya aan maqlayo ayaan imid buu yidhi markaasaan waxaan idhi maxaa meesha ka jira markaasaa waxaa la yidhi waa aroos waa la ciyaaraya oo meesha waa lagu tumanaya waxa uu yidhi waxaan doonay inaan dhegaysto oon daawado sida u ciyaarayaan waxa uu yidhi meeshii aan sidaa u fadhiistay ilaahay hurdu ii keenay dhag indhaha uma laygu qabtay wallaahi maa ayqadanii ilaa xaru shams cadcadda iftiinkaygii iyo kuliilkaygiiba ay toosiyey buhi nebigu subaxdii waa la iseexiyey cadcadda kuleelkaygii ayaa ay toosiyey subaxdii meesha waa laga kala tegay arooska waa laga kala yaaco waa la dadka way seexdeenoo waa la tooso cadcaddiiba ay toosiyey buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kalena sidaas silag baan ku fikiray buu yidhi inaan soo caweeyoon sidii silag hurdaa laygu salliday waa la ii geliyey buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi bacdahaa iguma soo dhicin inaan caweeyo oon shabaabka iyo waxaa la soo caweeyo iguma soo dhicin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu bilaabay sala allahu calayhi wasalam da'diisu isaga oo 25 jir ay tahay inuu tijaaro ganacsi inuu bilaabo khadiijo haweeney la yidhaahdo ayaa jirta markay joogtaa waa haweeney lacag leh taajirada weeyaan sharaf bay leedahay nasab bay leedahay waa naag la yaqaano waa naag carmaliya dadka oo dhan ragga waaweynee saadada waa la furay waa aad bay u doonayaan haweeneydaa inay guursadaan lacag bay leedahay rag badan baa u shaqeeya oo lacagteeda loogu shaqeeyaa haweeneydaas ayaa waxay maqashay maxamed waa nin yaroo aamina waa nin yar run badan waxay maqashay wasfi nebiga la tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam awsaaftii nebiga waa ina yar oo adag oo quwad leh oo edeb leh oo ixtiraam badan oo been aan aqoon oo waxaasoo dhan bay maqashay wiil yar oo la jooga iyada ayay u dirtay tiri igu yeedh ha ii shaqeeyee lacagteedii bay u dhiibatay wuu dhaqaaqay nebigu xaggaa iyo shaam ayuu dhaqaaqay si uu ugu soo shaqeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam shaam buu tegey isaga oo xoolihii wada waxaa la socday wiil yar ay maysara la yidhaahdo maysara ayaa la yidhahdaa waa addoon iyada ay lahayd khadiija wiilkaasaa la socday nebigu wax badan uu sii qaaday uu soo iibiyey aad buu u soo macaash ilaahay baa barako u gelinaya meeshuu galaba waa la sii diyaarinayaa adabanii rabbii fa axsana ta'diibi waa la sii barakeeyey wixii uu sii qaaday oo dhan waa laga qaatay barako badanna ilaahay uu geliyey xooluu ka soo iibiyey shaam markuu kaano hore looga iibsaday barakuu ilaahay u geliyey lacag badan oo ina weligeed helin ayuu soo hooyey oo kan way jeclaatay marka
وقرسنا يا خديجة نبي عليه الصلاة والسلام خديجة مركي أركت بركة أمانة ديس رنتيسة وناقيسة قروح ديسة ونندسن ونربي الربي ويشعلات rag badan oo doonaya way iska diiday agoonkan yar ee jecesha akhlaaqdiisa diintiisa edebtiisa ay ku jecesha haweeney kale u sheegay kari weydaan ku jecel ay gurso oran kari weyday haweeney kale oo ay saaxiib yihiin oo nafiisa la oranayay ayay u sheegtay oo tiri maxamed baan rabaa inuu guursado way dhaqaaqdo haweeneydii nabiga u tagtay calayhi salaatu wassalaam ka warrabay tiri arrintaas nebigu wuxuu yidhi waa yahay waan ogolahay da'diisu waa imisa waa 25 iyadana waa 40 jir imisa sanay ka weyn tahay 15 sano ayay ka weyn tahay nebiga calayhi salaatu wassalaam laakiin waa naag akhlaaq leh waa naag edeb badan weeyaan nebiga arrintiibuu adeeradiibuu u sheegay adeeradiibaa u doonay nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuu aroos galay خلاص وقرسدي waxay ahayd haweeney sharaf leh nasabkayga la yaqaano aqli badan ayay ahayd waa haweeneydii ugu horeysay uu nebigu guursado intay noolayd haweeney kale ma guursan nebigu calayhi salaatu wassalaam awlaadiisa oo dhanna nebiga iyadaa u dhashay marka laga reebo inankiisa ibraahim marka laga reebo inta kale iyadaa u dhashay awlaadda nebiga imse ahayd ma garanaysaan تضبع أهين أولاد النبي عليه الصلاة والسلام زينب رقية أم كلثوم فاطمة قبلوا أمس أفر وزينب هي رقية هي أم كلثوم هي فاطمة ويان عبد الله وين مضي عبد الله الطاهر بمجي لو يجري شيء يعني لو بحيي عبد الله قاسم iyo ibraahim haweeney kala dhashay maariya alqibtiya waan ka warrami doonaa ayaa dhashay awlaadiisu gebi inamadu iyaka oo wala yar bay dhinteen mid baa loo qeymay jirto gebi iyaka oo inamadu wala yar ayay dhinteen hablaha ayaa gaadhay islaamka gebigoodna wala islaameen wana wada hijroodeen gebigood isagoo oo nool ayuu nebigu wala aasay hablihiisii ilaa faatima mooyaane hablihiisu gebi isaga wala aasay caruurtiisa oo dhan waxaa hadhayo faatima ayaa hadhay faatima mise ka dambaysay nebiga 6 bilood bes nebiga caruur male way wala raaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyii aabbana male laakiin nebigu maanta waxaan ku jirnaa isaga oo guursaday khadiija aroos wanaagsan ayaan kula jirnaa nebiga calayhi salaatu wassalaam jumcaha dambe hadduu alla yidhaahdo ayaan xagga kasii qaadi doonaa وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين